أحمد وحي الشيء أدونك إنه عريرو كنا وضي مالون إيجر هذين إنه جرن هالمرة هدي أنا أحتكاك هذي لها عنا هذين وحي أدونك يا أقرب مدى أنا هذي لها لكن أدونك أنا متشوقي ويرى آخرنا ما عادنا وما دبانين مليل سرير صارن أيانا هاي يقول أحمد مدة 6 ساعات أيان شيء كيسيني مركي أن تليفونك أن كدقينا أحمد مركي أن كعلي تليفونك أحمد سجوا أنت ماذا يوها وحي الشيء ويلكي walaalkiisa oo dhalay Axmed inuu dhintay codkayga basna uu sugayay inuu helo Allah u naxariisto janno Allah ka waraabiyo qabrigana waasac Allah uga dhigo waxaan ku sheegayaa qof muddo badan jacayl ku siiyay qof muddo badan farxad ku siiyay qof muddo badan wanaag ku siiyay qof muddo badan ku dulqaad badnaa qof muddo badan aad ku jeclaa wandey haddii uu qalad kaa galay xalafka dhamaaday ood kala tagteen ma wuxuu ku iloobi karaa jacaylka 5 years 6 years qalbigaaga deganaa ma waxaad ku iloobi kartaa 13 years waxaad ku iloobi kartaa wandey oo asagoo naag la joogo intaad ugu tagtay aad maseertay maxkamadan aad geysay dalqadiina aad ka qaadatay bila aadano ma ku iloobi kartiin waan dadaalay si kasta waan isku teerigaray inaan qalbigayga ka dhaqo Axmed una sheega nafta inuu dhintay samariya iimaan aan qaato laakiin ma awoodo inaan Axmed markasta oo farxo Axmed waan soo xasuustaa markasta oo naxana Axmed waan soo xasuustaa markasta oo shaqo far badan aan qabtana aan qof shaqada ila qabtaan waayo kaliya igu noqoto waan soo xasuustaa Axmed markasta oo narko cidiyayga waqtiga la jiray inay joogaan oo dheeryihiin waan soo xasuustaa Axmed markasta oo kaliya meel fadhiisto marraba way hortaagan yahay si kastoon u ordo si kastoon u dadaalay si kastoon salaad badan u tukaday si kastoon Ilaahay u weydiistay inuu qalbigayga uga dhaqo haddana waan awoodi waayay Axmed inaan ka dhaqo balaalayaal haddaad ikoobiyeyn lahaydeen iyo haddaad been warkayga u malayn lahaydeen waa reeli midaan idil kala hadlayaa jacaylku waxaan anagu keensan karno ama matali karno ama abuuri karno maaha waxaan anagu awoodna inaan iska tirtirno oo iska dheereynano maaha waa qof waa jacaylku waa naxariis samcad samaawaadka ka soo degta Ilaahay ayaana bixiya rabbiga naxariista badan haddii aad qofku jecel haysatay adiguna aad jeceshood habikooda ku faraxsanin haddii oo kaa tago murug badan ayuu kaaga tegayaa murug badan ayuu kaaga tegayaa si kasta oo Axmed anigoo jecel guriga u joogo oo naag raadsaday oo shukaansaday oo qalbigaygu maanta aad u damage garoobay go'aan qaatay inaan ka tirtiro waan awoodi waayay inaan ka tirtiro waan awoodi waayay Axmed 10 sano ayuu duugay hadda Ilaahay ha naxariisto janna Allah ka waraabiyo after 93 ayay ahayd xilliga Axmed laygu mahriyo leysii inaan shukaansaday iyo inaan anigu doortay midna ma ahayn inaan isagu jeclaaday oo walaalka iga doonto laygu daray waa hase ahaatee waan ku midoono nolosha si fiican waan isku fahanay dad muslim oo helo salaadana waan wada ahayn labadoodana waxaan ka midaysanay qalbi daacada iyo kalsooni iyo diinta waan ka midaysanay iyo dulqaad iyo samir inta waan ka midaysanay iyo darajayn laakiin alxamdulillah على كل حال هداد Soomaaliya يكون بيين لهيدين هداد إضافة لهيدين waxaan idinka codsanayaa caaw markasta oo muufiga Axmed fiirsataan
inaad ilaahay iila baridaan inuu u naxariisto janno firdowsana ilaahay ka waraabiyo qabrigana ilaahay waasac uga dhigo intaa ilaahay igala barya